guddigan oo ayaa ra'iisul wasaaraha dalka u xil saaray baaritaan inay ku sameeyaan sababtii keentay dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee Xamar 10kii bishan ayaa maanta kulan la yeesheen waxa ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ku soo ogaadeen baaritaankii ay soo sameeyeen waxaana kamid ahaa in hub iyo rasaas la geeyay xabsiga dhexe kuwaasi oo lagu qariyay hilib iyo jawaan liina guddiga waxay ogaadeen in maalintii 8aad bisha 8aad xabsiga dhexe la soo geliyay hubkaas oo ku jiray alaab loo keenay dadka xabsiga ku jiray waxaa kale guddigu u cadaatay in maalintii 10ka bisha loo keenay maxaabiistii meeshii ku jirtay oo damacsanaa in dhibaatooyin ay ka sameeyaan xabsiga rasaas dheeri ah loo keenay hubkan waxaa lagu soo qariyay mar jawaan liin ah marna waxaa lagu soo qariyay hilib hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garooway in dhibaato meesha ay ka ridaan waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaawaan maalintii 10aad bisha 8aad halkaas oo ay ku isticmaaleen bastoola iyo bambooyin maxbuuskii ugu horeeyay oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisna uu ku dilay sirkaal ilaalinaya maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa loo gudbiyay 12 kamid ah ciidanka asluubta oo ay ku jiraan taliyaha iyo taliye ku-xigeenka xabsiga dhexe kuwaasi oo lagu eedeeyay fudayn iyo dayacaad mas'uuliyadda ay hayeen waxaa sidoo kale loo xiray falkaasi 6 qof oo shacab ah kuwaasi oo lagu tuhmayo inay xabsiga dhexe hubka geeyeen ay maxaabiistu ku dagaalameen waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen masme ahe ay sameeyeen dayacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan kuwaas oo hadda si fiican loo baaray waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo waxaa xabsiga dhexe qofkii marka mas-uul ka ahaa taliyihii xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo waxaa kale falkan loo qabtay 6 qof oo ayagana muwaadiniin ahaa civilian kuwaas oo ayagana la aaminsan yahay inay fududeeyeen oo qeyb ka qaateen kuwaas oo ayagana lahaayo baaritaan ku socda waxaa sidoo kale lahaaya 9 qof oo maxaabiista ka mid ah oo qeyb weyn ka qaatay falkan hadda waxaa gacanta ku haaya baaritaankiisa guddiga markuu soo dhammaystiray baaritaankiisa waxaa loo gudbiyey xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida maadaama dadkan ciidan ay u badnaayeen dadka kale caawina ay ahaayeen dad argagixisada la shaqaynayay iyadoo wax laga baranayo dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee Xamar ayuu sheegay wasiirka cadaaladda in la dhaqan geliyo isla markaana uu faray saraakiisha ciidanka asluubta inay ku shaqeeyaan hanaanka iyo shuruucda cadaaladda wadanka u taala isla markaana ay dhaqan geliyaan ciidamada asluubta si looga baaqsado in dhacdo la mid ah taasi ay ka dhacdo xabsiga dhexe waxaa wasaaradda cadaaladda ka horgashay in dib u howlgeliso shuruucda xabsiyada dalka sharci number 7 oo soo baxay 30kii bishii 12aad 1971
iyo habraaca xabsiyada dalka. habraacaas oo nambarkiis uu yahay 49 oo soo baxay bisha 9aad taarikh 9 bisha 8aad 1984. habraacaas waxaa lagu faahfaahiyey waxyaabaha laga mamnuucay xabsiyada dalka iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto. waxaa loo baahan yahay in tababaro khaas ah la siiyo ciidamada usluubta, wacyigelin guudna la siiyo maxaabista ku jirto. waxaan faray ciidamada usluubta iyo taliyaashaba in habraacaas iyo shuruucdaas la howlgeliyey ay u hoggaansamaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in lasoo gebagabeeyey dadna loo haayo dhacdadii xanuunka badneed oo xabsiga dhexa ka dhacday. waxaan aad iyo aad ugu xunahay intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantay. waxaan leenahay intii ku dhimatay oo ciidamada usluubta ka mid ah oo dagaalkaas ka qayb qaadatay oo halgamiyaasha ah, waxaan leenahay ilaahay jannada ka waraabiyo. kuwa faldembiyeedka ku kacaya ummadana ma aragtay u horseedayo dhibaato, waxaan leenahay ayagana ciqaabtooda way heli doonaan. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.